saaxiib yaal ku soo dhawaad been rakaama been channel saaxiib yaal waxaan ogaa in badan inaan kala maqanin oo muddo badan inaan is arag laakiin waxaan ku maqlay arrimahan in gooni ama arrimo aad muhiim ugu ahaa laakiin waxaan dadka bacdi ka ballan qaaday inaan sidii hore si ka fiican kusoo rikaab gareyn doono ama kusoo khulaasayn doono kaliya saaxiib haddii muuqaalkan aan filcilin fiican ka arko ama meel fiican ay gaarsiisaan waxaa idin ballan qaadaya inaan muuqaal si joogto ah usoo dhigi doono haddaan nagu cusubtaan soo subscribe gare muuqaalkan like noo sar saaxiib xalqadeena waxay ku bilaabanaysaa iyadoo la tusiyo riin oo hortaagan kaniisadda waxaana barta ku siin lagu magacaabo Mephisto isla markaana wuxuu kala gaaray Lemoyo oo aad u soo socda wuxuuna geelayaa halis oo waxa jira gaariga markaasna gaari waxa ka soo in lagu magacaabo Mephisto marka isla hadlan in badan meesha wuxuu ku arkay walaalkiis oo aad uga yaabinaysa markuu arko intaas ka bacdina waxay soo raacayaan gaariga iyagoo ka cintamay meel lagu magacaabo Turkos wana akaadimiyada UK ka jeedo doono khudbada markuu ka coyo UK oo rabay inuu khudbad jeeyo walaalkiin ba aad ula yaabay kalsoonidiisa iyo dharaantiisa iyo sidoo uu kalsoon yahay walaalkiis intaas ka bacdina UK wuxuu soo baxay walaalkiis banaanka UK waxa uu maanayay gabdho asagoo si fiican ula hadlaya markaas rin wuxuu soo xasuusanaya xasuus hore iyo sidoo walaalkiis mar buu difaaci jiray wuxuuna dareemay in walaalkiis culis uu ku yahay arrinkaasna aad buu uga caroonay ama uu ka xanaaqaya intaas ka bacdina rin wuxuu iska imaanaya akaadimiyada asagoo aad u sahminay ardadna wala yaabay in ardayga fufudeedkiisa markaas ka bacdina Satoraha wuxuu la yaabay akaadimiyada si ugu weyn tahay wuxuuna soo galiyay fasalkiisa isagoo fadhiisanaya kursigiisa oo naska tiraya ama aad u dharbaaxayay ardadana way ku sheekaysanayaan kasaga waxba kama soo qaadayo waxbar markuu fadhiyo wuxuu u baxaya banaanka asagoo kasoo daadagaya jiraan jirta markaas ka bacdina rin wuxuu arkay eeyga siyarkan markuu arko wuxuu la yaabay si uu qurux badan ama sidoo uu yahay laakiin asaga waxa soo ka baqaya aad u la yaabayo markaas ka bacdi wuxuu arkay eeygu aad uga cararaya wuxuuna ka daba cararaya eeyga markaas ka bacdi wuxuu arkay eeygu meel fuulaya laakiin asaga ma og eeyga inuu yahay Mephisto ama ninkii mar hore ay soo arkeen wuuna la yaabaya markuu arko Mephisto oo ka soo muuqda ama eeyga isku bedelay markaas ka bacdina Mephisto rin wuxuu siinayaa fuure laakiin rin ma og fanahan waxa uu tarayo markaas uu Mephisto bilaabay inuu meesha iskaga tago rin asana wuxuu bilaabay inuu daba gal ama daba raaco markay soo raacaan waxay imaanayaan albaabkaas oo furaha markaas lagu furayo laakiin meeshan waa meesha dad lagu baray sida awoodooda u xakameyn lahaayeen markaas Mephisto wuxuu iska dhigay eeygiis si aan loo garan walina riin waxay uga cadaa ciyaartii ama kaftankii laakiin ma oga waxa dhabta meeshan lagu baranayo marka albaabka uu furo riin wuxuu arkayaa ardayda faraha badan oo ku soo arkay akaadimiyada laakiin ma oga ardayda naftirkooda in asaga naftirkiisa la yaabihiin oo aad u soo eegayaan laakiin saaxiib labaatan rin maahna waxa joojiyay oo si ayar ayuu kursiga soo fariisanay asagoo dadka naftirkiisa la yaaban markaasna waxa arkeena aad arin la yaab ah oo waxa arkeena UK oo macalinka fasalka ah riina arintaas waxay ku noqonaysaa arin aad qalbigiisu taabata oo waayo ma aqbali karo walaalkiis inuu yahay meeshan ka yahay macallin ama professor wax dadka baraya sida awoodaha u xakamayaan oo wuxuuna bilaabaya meesha ka bilaabay buuq ama inuu walaalkiis ku qeylqeeliyo ardadana way la yaabayaan riina wali wuxuu iskiday inuu walaalkiis ku qeyliyo oo wuxuu istaagay walaalkiis inuu qabto chocolate-kiisa ama inuu xanaanto laakiin waxaan arkaynaa in ardayda fasalka ay ku caajisayaan ka xanaaqay oo iskaga baxayaan fasalkiina wax ku soo haray saddexdii bes riina walaalkiis wiilaad ku canaananay laakiin isla markii waxa jabay dhala dhiigu ku jiray riin ama arday kale ama walaalkiis ahaa waxa ma saadaalin kana bartaas ka dhacaya hal marna waxa arkaynaa inuu meesha qiic imaanayo qiicana wax ka soo baxaya bahla yaryariisa markaasna UK wuxuu bilaabay inuu si xirfad ula dagaalamo bahlada isagoo dhan kasta xabad ku ridaya waliba salaawadiisa biskoolada ogoowna saaxiib labadan biskoolada UK waxa kaliya ama xirfada kaliya aad u yaqaano walina waxa rayn dagaalka ama bahlada ay soo socdaan markaas riin wuxuu arkayaa sidoo walaalkiis ula dagaalamayo laakiin waxa arkna dhacdo aad u la yaab leh UK wuxuu biskoolada ku taagay walaalkiis riin laakiin markuu arko awoodiisa wax uu ka casay maxaa ka galaya oo awoodiisa waxa gaaraysa heer uu xad ay ka baxdo uu xakameyn waayo laakiin wuxuu la soo baxayaa safety markuu safety ula soo baxana wuxuu ka baqayaa UK walaalkiis inuu walaalkii riin u dilo laakiin dhacdadan ama waxaan uu sameeyay raba sax xataa adin masaadalin kadib wuxuu sameeyay inuu hal mar caaro oo bahalkii kala jaro markaasna UK wuu la yaabay markuu arkay walaalkii oo bahalka la dagaalamay oo isaga dhaafay markaasna UK wuxuu aad uga shaqeeyay walaalkii biskoolada ku taagay oo wuxuu galaya xasuus aad u dheer oo wuxuu soo xasuusanaya markii uu yaraa oo markii uu hayay markaas ka bacdina ardayda fasalka ayaa imaanaysa meesha ama goobta waxaan arkeen goobta aad iskugu qasan oo aad isku dagaalay laakiin ayaga mooga meeshan waxa ka dhacay bartaana waxa ku dhamaanaysa xalqadeena saxda ee Blue Exorcist saaxiib hadda waxaan ka codsanahay bartan la soo gaartay inaa muuqaalka noo fogeysid noona shirgelisid noona la galeysid wixii faaladaada ama fikrad ka haysid muuqaaladan barta comment oo ku soo qor